experience cusub baa kala soo kulmay aniga kursigii baan doontay waliba habraaci nidaamkii la sameeyay uu leeyahay odayaasha dhaqanka ee jifooyinkaas baa iska leh awoodda bixinta kursiga marka jifadeedii baan u tegey waan la hadlay jifadeedii waxay isku raacay 100% in kursiga aniga la siiyo kursigii la siiyey haddana waxa dhacday galab wanaagsan saaxiibayaal u diyaar garooba inaad daawataan idaacadeena galabnimo janaaladena YouTube-ka sirta wararka iyo Dabaasha TV waana galabnimo talaada saaxiibayaal taariikhduna waxay ku beegan tahay 15 Maarso sanadkan 2022 idaacadeena qodobada ugu waaweyn waxa qaybka doorashada Soomaaliya oo mar kale dib u dhacday iyo cunaqabateen cusub la filayay in la saaro madaxda Soomaalida sababta u noqotay dib u dhaca doorashada warbixin dheeraad ah arintaas ku saabsan ayaa idin soo gudbin doona waxa kale oo qaybka maamulka Koonfur Galbeed oo noqday maamulkii ugu horeeyay ee soo gabagabaya doorashada maanta ka dhacday magaalada Baydhabo guud ahaan waa la soo gabagabeeyay natiijooyinka iyo taliyaha ciidanka asluubta oo isna kursigiisa soo qaatay safiirka Mareykanka wuxuu shaaciyay go'aan la xiriira dib u dhaca doorashada ee talaabada Mareykanka uu qaadi doono beelweynta habiyada waxay ku soo baraarugeen abaabulka farmaajo iyo beesha hawiye oo laga yaabo inay ka hortagaan isbahaysiga Baydhabo ka soconaya waxa kale oo idin soo gudbin doona saaxiibayaal taliyihii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Indha Qarshe oo sharaxay wixii ku qabsaday galmudug iyo sawaha kursigiisa loogu diiray qodobadani kuba kale muhiim ah oo ku saabsan qarax mas'uul caan ah lagu dilay oo magaalada Muqdisho ka dhacay oo soo qaadan doona qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe noo dhigam balkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena galabnimo soo dhawaada saaxiibayaal doorashada Soomaaliya ayaa mar kale u muuqatay in dib u dhac weyn uu ku yimid waqtigii lagu ballamay maadaama 25 bisha waa 15 bisha Maarso maanta ah doorashada Soomaaliya ay qabiyo tahay dawladda Soomaaliya ayaa u muuqatay in mar kale ay wajihi karto cadaadis xoog leh oo kaga imaanaya wakiilada beesha caalamka iyo deeq-bixiyaasha doorashada Soomaaliya ayaa mar kale dib u dhacday xilli maanta 15 Maarso ay ku ballameed ama ay ku beegneed waqtigii la soo gabagabeeyay lahaa doorashada Soomaaliya Somaliland beelaha banaadiriga ayaa kuraasada lagu qabtay magaalada Muqdisho oo la soo gabagabeeyay Koonfur Galbeedna maanta iyo soo gabagabeysay galmudug caawa ayaa la filayay in la soo gabagabeeyo laakiin caqabad waxay ka taagan tahay Puntland Hirshabelle iyo Jubbaland iyo 16 kursi ee Garbaharey kuwaas ilaa hadda u muuqda caqabada ugu weyn doorashada Soomaaliya laba kamid ah laba kursi oo ku harsan waa 6 kamid ah oo 6 kamid ah kuraasta ku harsan Puntland oo laba kamid ah taalo magaalada Gaalkacyo gobolkaas Mudug qaybta waqooyiga ayaa siciidana la sheegay dhibaato xoog leh ay ka haysato oo ismada dhaqanka isku mari la yihiin madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa la filayay in mar kale jaangooyn ay ku sameeyaan waqtiga la soo gabagabeyn karo doorashada kulan aalada fogaan aragga ayaa la filayaa in madaxda golaha wadatashiga qaran ay qaataan caawa oo ay si u jaangooyaan waqtiga doorashada dhinaca kale maamul goboleedkii ugu horeeyay soo gabagabeeyay doorashada waxa uu noqday Koonfur Galbeed maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqonay maamul goboleedkii ugu horeeyay soo gabagabeeyay doorashada lagu ballamay in la soo dhameystiro 15 bisha Maarso maanta ku beegan guddiga doorashada Koonfur Galbeed ayaa maanta soo gabagabeeyay waqtigii lagu ballamay soo gabagabeynta doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka kuraasta doorashada la qabtay waxay kaliin hob 47 hob 120 waa 172 hob 164 hob 197 hob 204 181 waxaana dhammaantood bay ahayn kuwa la sii ogaa dadkii ku soo baxaya Xaawo Sokar Cali ayaa ku soo baxday kursiga koowaad hob 47 oo kursigan hore ugu fadhisay wasiirada haweenka General Mahad Cabdiraxmaan ninka sodonka u ah madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa isna ku soo baxay kursigiisa 172 halka Maxamed Abuukar Cabdi wasiirka amniga uu ku guuleystay kursiga 164 Umar Cali Baashe isna wuxuu ku guuleystay kursiga 197 Isaaq Cali Subak ayaa isna oo waa Isaaq wasiirka amniga ayaa isna ku soo baxay kursiga hob 204 Maryan Cali Isaaq ayaa ina ku soo baxday kursiga 81 talabadan ayaa ka dhigay in Koonfur Galbeed ay dhaqan gelisay jadwalkii ugu dambeeyay ee doorashada golaha wadatashiga qaran ay qaateen ee iyadu soo gabagabeysay doorashada baarlamaanka ayaa martay heerar kala duwan iyadoo deegaan doorashada labaadna qaarkood caqabad ay ka jiraan sida Garbaharey oo kale Soomaaliya waxay ku dahday marxaladda kala guurka marka loo eego doorashada
beelweynta habiye saaxiibyal dhaqdhaqaaqa xoog leh ayay bilaabeen kadib markii ogaadeen isbahaysi xoog leh inay sameysanayaan beelaha dir iyo weliba sidoo kale digil iyo mirifle iyo beesha shanaad kuwaasoo 25 bishan lagu ballamay in shir uu ka dhaco magaalada baydhabo. beelweynta habiye ayaa la sheegay inay hadda ay bilaabeen abaabul xoog leh oo ay kaga hortagayaan damaca iyo qorshaha farmaajo uu ku rabo ee ahaa in kuraasta in gudoomiyaha baarlamaanka la siiyo beesha hawiye. ila xogagaala waxay noo sheegeen in xalay kulan ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya oo ay ka wada qayb galeen farmaajo lafta gareen iyo sidoo kale xubno ka socda siyaasiyiinta beelaha direed iyo Fahad Yaasiin go'aan lagu gaaray in sanadkan xilka gudoomiyaha baarlamaanka la siiyo beesha hawiye. waxaase beelweynta habiye la sheegay in si weyn kaga soo horjeesteen go'aankaas ah in hawiye sanadkan ay qaataan. beesha habiye ayaa la sheegay in hadda ay bilowday dhaqdhaqaaq xoog leh iyo kulamo ku saabsan sidii u kala furfuri lahaayeen. 26 bisha Maars ayaa lagu ballamay shirweyne ka dhici doona magaalada Baydhabo kaasoo isbahaysi rasmi ay sameysan doonaan beelaha digil iyo mirifle iyo beesha direed iyo weliba sidoo kale beelaha la yiraahdo Bounty 5 ama beelaha shanaad marka la isku gooyo cudud ahaan awoodda number ee baarlamaanka ku leeyihiin beelahaas ayaa la sheegay inay gaari karto ilaa 146 mudane oo cudud ay heli karaan marka la isku daro labada aqal ee baarlamaanka. tani ayaana ka dhigan in farmaajo haysto fursad weyn oo mar kale dib ugu soo noqon karo talada iyo hoggaanka Soomaaliya. xogtu waxay sheegaysaa in farmaajo Maarso 26 Baydhabo tagi doono kana qayb gali doono kulamadaasi si uu isku muujiyo awoodiisa. warbixinadeena kale ayaan eegina haddaba beelweynta habiye iyo talaabooyinka habiye ay qaadanayaan eegi doonaa. qarax ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qaraxan oo ka dhacay qaybo kamid ah Daynile ee gobolka Banaadir oo hal qof ayaa dhintay sida ay noo xaqiijeen. qaraxan oo joogtiisa laga maqlay xaafadaha Daynile waxa uu oo ka dhacay xaafadda Leer Bangaaliya ee degmadaas waxaana lala beegsaday mas'uul ee gaari saarnaa. gaariga uu qaraxa qabsaday waxa uu marayay meel u dhow isla xaafadda Bangaaliya waxaana goobtaas ku dhintay Daahir Xasan Tooxow daahir digile la yiraahdo oo maamulaha iskuulka Daynile ee ku yaala degmada Daynile. warar iskhilaafsan ayaa soo baxay qaraxan. wararka qaarkood ayaa sheegaya in maamulaha gaariga loogu xiray halka qaraxa uu aabin miino wadada dhinaceeda oo gaarigiisa uu qabsaday. ciidamo kamid ah kuwa ammaanka ayaa sidoo kale goobtaas gaaray kuwaas oo meedka marxuumka halkaasi ka qaaday. allah u naxariistay Daahir Xasan Tooxow ayaa sidoo kale kamid ah waxgaradka caanka ah degmada laga yaqaan ma jirto ilaa hadda macluumaad dheeraad ah. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadan waxayna sheegeen in ayagu ay dileen Daahir oo kamid ah ergadii ugu dambeysay ee soo dooratay Jaafar ee aaday magaalada Dhuusamareeb. dowladda Soomaaliya way ka tacsiisay. ugu dambeyn daawadayaal journal in qarshe oo maanta Muqdisho dib ugu soo noqday ayaa sharaxaya xaaladihii ku qabsaday ee Dhuusamareeb iyo sababaha qoorqoor u diiday kursigiisa xildhibaannimo asagoo si fiican u sharaxay dhacdooyin aan la mahdin oo sheegay inuu kala soo kulmay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo. qoorqoor uu sheegay inay mar unay xisaabtami doonaan. waa kan journal in qarshe oo arimahaas ka hadlaya. experience cusub baa kala soo kulmay aniga kursigii baan doontay waliba habraaci iyo nidaamkii la sameeyay uu leeyahay odayaasha dhaqanka ee jifooyinkaas baa iska leh awoodda bixinta kursiga. marka jifadeydii baan u tegey waan la hadlay jifadeedii waxay isku raaceen 100% in kursiga aniga la siiyo. kursigii la siiyey haddana waxa dhacday dowlad goboleedka iyadoon marmarsiyo hadda aan dhihi karo macquul ah layuusin baa wax la yimid kursiga gabar baa laga dhigay. hadda adigana gabar ma tihin sababta looga dhigay waa sabab la yaab leh markee reerkaygu 2 kursi meesha ku leeyahay sharciga iyo habraacan la sameeyeen wuxuu leeyahay 3 kursi iyo wixii ka badan baa gabar ku jirta isqabadsi bal adigu 2 ninkii mar gabar kuma jirto ma marka waxay ahayd si la iga reebo aniga baarlamaanka soo socdo. sababtan wax kale ma dad baa u arkay inaan dhibahayo way og yihiin qaranka inaan wax u qaban karo hore u soo qabtay wiil yar maahay aniga waxay record banaanka yani wax qabadkayga mid banaanka yaalo way oo la inkiri karin 250,000 oo ciidan xoog dab Soomaaliya aan la dagaal galay waxaan ku weyninka koowaad ee biladaab laga siiyay ka waxa la qarin karo ma aha. marka nin u baan rabin wanaagaas aan dalka u soo sameeyay inaan u sii wado qof ay dhibaysaa anu ma aqaan sababta u dhibayso. marka taasi waa taas saasa la igu diiday kursiga gabar baa laga dhigay hadana uu tartami karo saasoo taa hadana awlaad kama qabo kama nacareysni maxaa yeelay gabar fiican haddii la keeno iyadoo shaqadii waa qaban kartaa waan isleeyahay markay noqoto waa arag noqoto. marka taas waa intaas waxaan leeyahay
waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliyeed iyo galmudug waxaan rabay inaan u qabto inay halkaas ku luntay baan aaminsanahay aniga horta waxaan rabaa inaan mar inta iskugu yeero saraakiishii u yeero aan annaga dhexdeena ka wada hadalno war maxaa dhacay laakiin aniga sida ila taada ii sheegay annaga waxaana dad professional ah ciidanku waa professional marka waxaan weynay shaqadii professionalka ahaa ee nolol soo tababaray baa dowladdu noo diiday inaan ka shaqeyno banaanka nala dhoobay banaanka markii nala dhoobay maxaa banaanka haddaad tagtaan hadday dowladdu ciidankeeda idiin diiday haddee ummadda Soomaaliyeed inaad u shaqaysaan meel kale aad uga shaqayn kartaa soo ma waa inaad heshaan meel kale aad uga shaqaysaan waxaan nin walba iskiis anagoo tashan nin walba iskiis wuxuu doortay inuu yidhahdo war ana meel kale uga shaqeey xildhibaan baan galay xildhibaanaa uga shaqaynayna shaqa oo ka weheysan oo la mid ah waan uga shaqaynayna tiina waa naloo diiday hadda shananada loo diiday inay noqdaan xildhibaano noqdaan oo soo doontay aad bay u badan yihiin horena waxaa loogu diiday shaqadii ay yaqiineen ay soo doorteen oo aan lagu soo tababaray oo malaayiin soo maalan anigoo kale haddaan iska soo qaado aniga ruusaa la geeyey oo lagu soo tababaray malaayiin baa ku baxday dhaqaalaha dowladda Soomaaliyeed uga baxday kabacdi waa la soo celiyay inta markaa muddo ka shaqeeyay haddana Maraykan baa la ii diray malaayiin kalaa ku baxday yani qaranka waxaa lagu fadhiyaa marka runta loo hadlo oo la qiimeeyo lacag aad iyo aad u qiimo badan lacagtaas qiimaha badnayd oo dalku ku bixiyey inaan ku difaaco uu ku bixiyey maanta in la yiraahdo lacagtii qaranku baxshan uu iska iloobi adigana laguma rabo waa nasiib darro weeye waana aqoon xumo dadka maamulka haya aqoon xumo ay wadaan midda kale oo aan isdhihi karo maxaan ku rahdaa dee kaligeen maahane jananadii oo dhan hala celiyo laleeyahay baan rabaa inaan fasiro waxaa la rabaa nin waayo araga baarlamaanka hadduu soo galo waa yaqaana qofku dooranayo waa la yaqaanaa marka wuxuu dooranaya qof qarankan u wanaagsan laakiin inaan waayo arag ahayn oo xoogaa yar inta lacag la siiyo lagu maskaxdiisa lacagtaas yartaa u muuqato war aniga iga dooro intaan qaado soo maha marka ninkaas waxaa dhici karta in lagu maran habaabiyo xoogaa yaro kharash jananada laakiin xoogaa yaro kharash lagu maran habaabin karo suurtagal maa in lagu maran habaabiyo mana aqbalhayaan masiirka ummadooda iyo dalkooda intaas sare usoo dhibanay oo shalay ay siiyeen nafsadooda ay horeen mogtahay bilaadanka waxaa laga fiiriyaa wax ugu qaalisan qofka bilaadanka maxay tahay uu bixin kara waa naftiisa soo maha annagoo 18 jiraan u hornay inaan bixino nafsadeena qarankaan siino in qof inuusan nagu laaluushayn lacag yar uuna naga leexin karin ayaga way darisay sababtaasaan u malaynayaa sababtana lagu diiday inaan noqono jananadii loogu diiday laakiin jananaday u taalaayo dalka nina nagama xigo adiga maanta xilka fadhida waa noo diidi kartaa inaan shaqaalino ama sida hadda aad leysay laakiin haddii dalka nagama xigtid soo maha waa iska kaa dhicin karnaa waana iska kaa dhicin karnaa waana iska kaa dhicinayna kama aqbalayno in mataqaanaa la yihahdo annaga ajnabi ma nihin dalka waa u dhalanay waa usoo dhibtoonnay waa u soo xaq baan uga leenahay cid walba uga leenahay maalin hore aan ka hadlayay askartaa dagaalamaysa aan ka hadlaya askartaa ku jirta kuwa hadda al-shabaab ka hadlaya ku jira oo xuquuqdooda uu yahay marka loo baahan yahay isbitaal male ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel lagu daaweeye male ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dowladdu lacag bay u weysay nin ka dhageysanaya ma laha uma weyni dowladdu mogta aniga laftigayga inta wadan ajnabi tagay soo bariyay laga aqbalay in dhakhaatiir iyo loo soo diro xilka maalinta laga qaadana meesha ku dhuntay kuwa jaban isbitaalka yaala ee lugaha ka jaban ee dagaal ku dhumay waana madaxdii dagaalka gelisana way joogtaa uma danqanayso marka askarigu muxuu ku dhintaa muxuu ku dhimanaa bal ii sheeg adigu wax ku dhimanaya waa u dhimanaa dadku dalka ka xiga kama xigo dalka wiilka suuqa jooga oo dukaan ganacsanaya iyo askarigu dalka waa isku xuquuq masiirka unbaa la tegay isaga inuu tago soo hadduu xuquuqdiisa ku waayo dalka daafici maayo wow ma daafici doono berito sabab u dhinta male isaga keligiis male dowladda waxaa laga rabaa inay fikirto waxaa la rabaa ko ninka nool waxa ka daran ninka dhintay ninka dhaawaca ka daran ninka dhaawaca baa waxaa laga rabaa in loo tiriid gareeyo sida ugu qaybo badan oo uu dareemo inuu dal u dhaawacmay markaas inuu dareemo saaxiibadiis kale way ogaanayaan markaas inuu jiro soo ma maalintaas wuxuu noqonayaa kan nooli inuu dalka daafaco u go-aansanaya uu dalka u dhinto marka waa arkay sida loo tiriid gareey laakiin markuu arko in suuqa lagu tuuray kii dhaawacmay oo adiga aad leedahay marka allah intaan noolaha lay rabaa soo ma war aan noolaa ka baxa meesha taasi ku socotaa
war baan noolaa ka baxo marka jananada aad baan ugu xumaay inay taasi ku dhacdo su-aasha adan waa su-aal noobala laakiin jananaday u taallaa iyo ummadda soomaaliyeed weyn ba u taallaa war dalkan dadkii wax usoo shaqeeyey oo wax ka soo qortay ma wiil yar oon weligiisba dalka inuu lacag ka xado mooye aan weligiis wax soo gelin maa masiirkooda wax kumahaya ma masiirkooda in wax kuma maha asagaba xaq bu uma leh dalkii weligaa maxaa ku dartay maba lahayo wuxuu kusoo darsaday laakiin wuxuu ku fakarayaa maanta aan wiilasha waxay ku fakar maanta anaa xukunka jooga war berri ma joogaysin ogow meesha boqortooy maaha berri meesha tegi lahayd baa la rabaa marka xukunku dhamaado wax ka tagto marka qof kasta oo caqli leh wuxuu ku fakaraa berri maanta maaha berri maanta inuu wax fiican ka tago suu berri ugu baxsado berri suu u aayo buu ku fakaraa maanta haddaa xumaan samaysid berrina xumaan baa helaysaa wanaag heli maysid si kasta hadii la yaro aniga daahir aadan cilmi qarsho run ahaantii wax badan baa isoo maray dalkayga markaa shacbiga soomaaliyeed la kulmo baan dareemaa inaan dalkayga wax taray sida ii qadariyaan sida ii qiimeeyaan sida la ii soo dhaweeyey marka intaasaaba igu filanba run ahaantii aad iyo aad bay igu filan tahay shacbiga soomaaliyeed mahad baan u celinayaa aad baan mahad ugu celinaya shacweynaha soomaalida aniguna aad u jecela iyagana aad u jecelay tusay meelo badan dibadii gudahaba markaan tago waa ninkaa ina qarsho weligeed ku aan arkin laakiin magacayga yaqaano marka mahad baan idinku celinayaa aad iyo aad baan welina diyaar baanuna inaan u shaqeeyo ballan baan ahay 18 jir anoo kitaab gacanta ku maray inaan dhiigayga u huro ummadda soomaaliyeed